daawade haddii ay tahay markii kugu horreysay ee aad soo booqato Ibrahim Honest Official, fadlan subscribe, like, share iyo comment iyo ilaawin gambaleelkana furo. mahadsanid. bismillahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asxaabta kusoo dhawaada casharadii gaarka ah ee taxanaha ahaa ee ingiliishka, gaar ahaan wada sheekaysyada. muuqaalkan haddii idiin soo gaaro like kala saaro, hala sii sheergareeyo si ay uga faa'iidaystaan dad fara badan oo jecel luuqadda ama ay ku adag tahay. isbuucyadan sida caadiga iskuullada waxay ahayeen fasax, sidaa darteed wax muuqaala ama soo sameynin. muuqaaladii ingiliishka ee form 4ka waan bilaabaynaa isbuucan soo socdo. haddana waxaan sii gudagalaynaa muuqaalkan oo ku saabsan casharada wada sheekaysyada ee gaarka ah. casharkan wuxuu ku saabsan yahay ama uu ka hadlaa waxa lagu magacaabo classroom language ama luqadda fasalka, sidii su-aalaha ardayda dhexdooda isku weydii lahaayeen ayagoo isticmaalayo luqadda ingiliishka. kelmadahan waa kelmado muhiim ah, waxaa loo isticmaalaa fasalada gudahooda, waxaana isticmaalo ardayda. waxaan ku hormaraynaa qaybta ardayda oo ah classroom language for students, luqadda ardayda ay isticmaalaan ee fasalada gudahooda. waxaa ku xigi doonto qayb kale oo ah qaybta macalinka. ardayda markay fasal ku jiraan, haddii u baahdaan inay banaanka baxaan, haddii u baahdaan inay su-aal macalinka weydiiyaan, haddii cashar ay fahmi waayaan qaabkii ay ingilishka u weydi lahaayeen, aan ku qaadanayna casharkan. tusaale ahaan, haddii ardayga u baahdo xafiiska maamulka si uu fasax iyo waxyaabo kale u weydiisto, ugu horeyn waa inuu xafiiska amar uu weydiistaa si loogu fasaxo inuu gudaha galo. tusaale ahaan wuxuu leeyahay can I come, ma soo geli karaa to your office, xafiiskaaga. maamuluhu la hadlaa, maamulaha markaas wuxuu ku leeyahay soo gal. tusaalaha kaleeto, how should I pronounce, sideen ugu dhawaaqi karaa. tusaale ahaan waxaa ku dhibaayo ereyga dhawaaqiisa aa dhib kugu noqday. ereyga dhawaaqiisa haduu ku dhibo, markaas macalinka waxaa weydiinaysaa sideen ereyga ugu dhawaaqaa. markii qaab English u weydiinayso waxaa leedahay how should I pronounce, sideen ugu dhawaaqaa. dhashta meesha banaan waxay tahay ereygii adiga dhawaaqiisa ku dhibaayay aa meesha la gelinaa. haddii erey dhawaaqiisa aa rabtid in lagugu celiyo, macalinka inuu kugu celiyo haddii aa rabtid, waxaa leedahay how do you pronounce, sideed ugu dhawaaqaysaa this word, ereygan. macalinka markaas wuu kuu soo celinaa ereygaas. erey dhawaaqiisa xoogaa dhib kugu noqday, ereygii qaabka ugu dhawaaqaysay waxaa u mooday inuu qaab qaldan yahay. markaas macalinka markaa weydiinaysa waxaa leedahay will you pronounce, ma ku dhawaaqi kartaa the word, ereygan. macalinkaa weydiinaysaa si uu kugu dhawaaqo ama uu kugu sheego. dhash waxaabaa ereygii meesha la gelinaya. sidoo kale haddii erey isbeelinkiisa ama higaadiisa ay dhib kugu noqoto, qaabkaa u weydi lahayd macalinka. erey higaadiisa ama isbeelinkaa ku dhibaayaba, ardayda qaar ereyadaa dhibi karaan. macalinka marka waxaa loo weydiinaya, waxaa leeyahay how do you spell, sidee u higaadisaa. dhash waxaa la gelinaa xarafkii lagu dhawaaqayay ama xarafkii higaada loo rabay. qodob ku xiga wuxuu yahay, tusaale ahaan haddii sabuuradda aad ku aragtid xaraf ama laba xarfood oo kabitaal ah oo ku jiro casharka dhexdiisa, xarfahaas waxay noqon karaan xarfo la soo gaabiyey ama meel magaceed ama waddan magaciisa ama hay-ad taagnaan karaa ama magac u taagnaan karaa. haddii tusaale ahaan UK aad ku aragtid sabuuradda, UK waxaa laga soo gaabiyey aad garanaynin, macalinka waxaa weydiinaysa, waxaa leedahay what does the UK stand for, maxay u taagan yihiin labadaas xaraf ee UK. macalinka markaas saa kuu sheegaya UK waxay u taagan tahay United Kingdom, waa dalka ingiriiska. qodobka ku xiga wuxuu yahay, haddii cashar aad qaadatid, casharkiina aad si fiican u fahmin, macalinka waa inaad tusaale weydiisaa ama waxyaabo oo casharkaas kugu sifeynayo. macalin tusaale naga sii casharkan haddaa dhihi leed, waxaa leedahay will you give us, mana sii kartaa an example, tusaale. qodobka ku xigo, markii tusaale lagu siiyo xaraf ama erey aa meel ku aragtay, ereygiyaa ku dhibaayo. markii ereyga ku dhibo, waxaa leedahay could you explain, ma ii sharxi kartaa a little bit more, si tartiib ah oo laakiin oo kordhis leh about that, ereygaas wax ku saabsan xoogaa sharaxaad dheeri ah ma igu dari kartaa, oo laakiin sharaxaad oo tartiib ah. qodob ku xiga wuxuu yahay, tusaale ahaan markii casharka uu dhammaado ama sharaxaadda la dhameeyo, erey qaara kugu adkaadeen ama jumlado qaara kugu adkaadeen aa fahmi weysay, markaas macalinka waxaa leedahay maxaad ka wadaa ereygaas ama jumladaas. waxaa ku leedahay marka what do you mean, maxaad ka wadaa. qodobka ku xiga wuxuu yahay, haddii macalinka casharka uu sharxo, markuu casharka dhameey kadib aa aragtay waxyaabo micnahooda isu dhow yihiin ama ereyo ama jumlado micnahooda isu dhow yihiin, jumladiina aad kala saari karin adi, markaas macalinka waxaa leedahay what is the difference, muxuu yahay farqiga between u dhexeeyo a and b maxaa waaye jumladahaas micnahooda isu dhow yahay oo rabaan in lagu kala saaro ama lagu kala bayaaniyo. waxaa ku xigo, haddii casharka aa fahmi weysay, casharaa macalinka sharxay, markii macalinku casharka dhameeyo 2 mar uu ku celiyo waa fahmi weyse
markii cashirka aa fahmaysay cabaar marka laga joogo kadib su-aala lagu weydiiyey su-aasha marka lagu weydiiyo su-aashii haddii aad kasi weysay aada fahamsanayn waxaa leedahay I did not understand ma fahmin today's lesson casharkii maanta aan dhiganay ma fahmin aniga. waxaa ku xigo haddii macalinka uu ku diro shaqo guri ama homework waxa loo yaqaan haddii lagu diro homeworkii aad ka soo shaqeynin maalinka labaad aad soo laabatay markii fasalka aad ku soo laabatay maalinka kaleeto haddii lagu weydiiyo homeworka aadan ka shaqeynin sababtoo ah maada fahminba waxaa leedahay I don't understand ma fahmin the homework shaqo guriga ay dirta maba fahminba. halkii af Soomaali ay ka adeegsan lahayd waxaad adeegsanaysaa ereyada noocan oo kale. qodobka xiga wuxuu yahay tusaale ahaan haddii arday aad qalin ka qaadatid ama buug aad ka qaadatid adigoo isticmaalaya buuggiisa ama qalinkiisa haddii ardaygii uu ku dhaho qalinkeyga sii ama buuggeyga sii adigoo shaqada ku wato ama buug akhrisanayo ama qalinka wax ku qoranayo waxaa leedahay hal daqiiqo ii sug. waxaa ku leedahay marka just a minute hal daqiiqo ama just a second ama hal second ii sugaa leedahay. qodobka xiga wuxuu yahay tusaale ahaan haddii macalinka uu diro shaqo guri ama waxyaabo laga soo shaqeynayo ama waxyaabo exercise guriga laga soo shaqeynayo haddii la isu diro adigana aad goobjoog ahayn ardayda waxaa u weydiinaysaa qaabkan waxaa leedahay when goormee is the homework shaqo guriga due oo yahay mid waajib ah macnaha goormee la iska rabaa shaqo guriga maanta la diraaye goormee la iska rabaa. waxaa ku xigo haddii fasalka adoo joogtid aad u baahato arday inaad la hadasho ama arday inaad wax ka qaadato daarabtid ardaygiina oo muran iyo dood kale ku jiro waxaa leedahay excuse me igraal noqo can I talk to you ma kula hadli karaa for a minute hal daqiiqo ardayga soo mashquulsanaa aragtaba waxaa leedahay marka igraal noqo hal daqiiqo ma kula hadli karaa. qodobka xiga wuxuu yahay adigoo iskuulku soo degdegaayo waddada waxaa kula kulantay qof aad taqaanid qofkiyaa wuxuu marka ku dhahay qofkiyaa sheeko ama hadal kuu qabtay markaas waxaa leedahay I am sorry aan ka xumaa leedahay I am late waan daahay aniga sheeko hadda uma baahni waan daahsanahay. qodob kale ku xiga wuxuu yahay xilliga bareega marka la gaaro markii bareega la gaaro ardayda inta badan fasalladay ka kala tagaan bannaankay baxaan si ay usoo nastaan ama si ay waxyaaba bannaanka ay uga doontaan qof walba danihiisu si usoo fushto. adiga waxaa marka u baahatay inaad nasato haddii aad nasasho u baahan tahay qolka ardayda ay ku nastaan si aa u aadid waxaa leedahay can I go ma aadi karaa to the rest room qolka nasashada ma aadi karaa haddii tusaale ahaan arday uu kula joogo ama qof kaleeta aa wada fadhisiin si aa ugu soo degtid. qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay fasalka adigoo fadhiyo waxaa kugu xumaaday kursigii aa ku fadhisay ama kursigii aa dhibsatay ama kursigii aa fasalka sabuurad wax ka arki weysay ama ardayda ku dhibtay markaas waxaa leedahay inaad kursiga iska bedeshin waa rabtaa waxaa dhehaysaa markaas can I change ma bedeli karaa cities kursiga ma bedelan karaa kursi kale ma tegi karaa macalinkaa weydiinaysaa ama ardaygaa weydiinaysaa.